محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد شليته وحبه السيد وراق فرحوشي أي كقرنت هاي وأن نحر لهاي وحسبي لقى بين أبورتي وحل أنشري لقو شيكتي حلك قدوميها قدومية كحيك لباد حسبه waxaa ninkii loo deertin xildhibaan waabeeyo waa kii galay wadani cidda boo loo doortayna ma jirto kursiguna booskaasina boos la magacaabo maaha waa la magacaabay laguma fadhiisto booska fawdada xisbiga ka dhex socotay ka mid tahay waraaqdaasi cidda saxeexday saasaale u lahayn wax ictibaar sharciyeeda haba yaraatee sida u qoraydna waxay ahayd si aan ahayn go'aan guddi fulineed si aan ahayn bay u qorayd waxaan jeclahay halka ka caddeeyo taa waxba kusii dheeraan maayo mar hadday tahay farxabashi iyo waxaan xeerka iyo dhaqanka midna ku jirin waxba kusii dheeraan maayo taa waxaan jeclahay halkan inaan ka caddeeyo khilaafka aniga iyo cidda uu la soo kala dhex galay khilaafkani cidda uu la soo kala dhex galay xisbiga maaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi waana xeerkii kufsiga ee aan ka hadlay waxaa ogtiin ilaa maalintii hore laga hadlay madaxweynuhu mar qura muu caddaynin mowqifkiisa mar qura kabuu hadal xeerka waxaa la faahfaafintiisu ay soo baxday 1 bishii Sebtembar ee iminka dhamaatay siduu sharcigu dhigayana 30 cisho ayaa xeerka lagu faafiyaa markay 30 cisho dhamaadaan xeerkaasi dhaqangal buu noqdaa taa macnaheedu waxa weeye xeerkii kufsiga ee ummaddu ka qaylisay maanta waa dhaqangal inkastoo nin garanin cidda lagu xukumayo haddana maanta waa dhaqangal xeerkaas arbush badow bay waraaqdani ahayd maadaama uu dhaqangal yahay xeerku maanta yuu ka hadli bay ahayd macnaheedu waxaa leeyahay xeerka wax kastoo dhacayaba xeerka ilaa la waayayo oo saaxadda laga waayayo kama hadhayo madaxweynena waxaa leeyahay soo jeedinayaa madaxweyne u caddee ummadda mowqifkaaga ku dhiiro maxaad u gabanaysaa maxaad marba usoo diray ugu soo gabanaysaa buul yaroo buul hunguriya u caddee mowqifkaaga xeerkani waa xaaraan waa sharci darro dastuurku xadgudub ku yahay diinta islaamku xadgudub ku yahay wax la aqbali karo oo la qaadan karo maaha waxaan idin sheegayaa garyaqaan maxamed xasan jicsen oo ahaa maalintii hore aynu ka hadlaynay garyaqaankii ka hadlayay xeerkan meelaha laga keenay iyo dadka waday telefoon baa loogu soo hanjabay 4 nin baa ugu soo hanjabay oo midgaal cad yahay oo hargeysa jooga kabayr baa lagu yidhi arrimahayaga maxaa arrimahayaga ku geliyay haddii kale waad ka shallayn doontaa wuu ii sheegay waxaan ku yidhi ha u joojin wuxuu samaynaya gaalkiiyo waxa la socda ha sameeyaane ha u joojin maalintaasaan fahmay oo gartay loo soo hanjabay garyaqaanka in aan laga hadhin xeerkii inaanay gaala xeerkii ka hadhin la doonayo xeerkii in la fuliyo sidiisa loo fuliyo waxaanu isku haynaa waxa weeye waa diintii islaamka waa shareecadii islaamka ma aha siyaasad xisbiga dhexdiisa ah ma aha dana gaara ma aha wax kale oo naga dhexeeya aniga iyo madaxweynuhu ma jiraan وحيركا وصحيحي ودقن قليي
ayaan horena uga hor yimi iminkana aan hortaagna oo aanan ogolayn awooddayda markay dhaafto suuratu nuur iyo madaxweynahan isku eegaya suuradda uu ku gafay ee uu ku xadgudbay waa suuratu nuur iyo madaxweynahan isku eegaya balalka iskala soo dhacaan suuratu nuur maha suurada ku hadlay kari waayo waa suurad ku filan cid kastoo xadgudubta waayo ilaahay hadalkiisii weeye ilaahayna addoon kasta wuu ku filayahay ilaahayna waxaan sheegayaa ummadda waxaa la wado waxaan xisbiga iyagii loo gelinayo mushkuladda waxaan khilaafka lagu sheegayo hele xisbigii kulmiyaa iskhilaafsan warbaahinta haddaad tihiin iminkaba way maqlaysaa xisbi kulmiye laydhaa oo iskhilaafsani ma jira haba yaraatee waa madaxtooyada arrintani madaxtooyadii ka socotaa xeerkaasay kusan leedahay waa diintii islaamka waxaanu isku haysanaa qaala allaahu iyo qaala daaquutu ayaanu isku haysanaa madaxtooyadii jamhuuriyadda somalilan waa ayandaro ummaddii dooratay inuu u jideeyo intuu qaala allaahu ka tago qaala daaquutu waa ayandaro waxay dhalisay arrintani fawdo dhinaca sharcigaa in la galabay dhalisay fawdada warqadani ka mid bay ahayd dastoorkii xisbigu waa ka mid dastoorkii jamhuuriyadda somalilan waa ka mid waxaan halkan ugu baaqayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inay maalinta sabtida ah ee soo socota haddii allaha weyne aqbalo inay isugu yimaadaan xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ee magaalada hargeysa ay isugu yimaadaan iyaga awoodda leh waa hay-adda u sarraysa xisbiga cid kastoo ku gafta xeerka iyo barnaamijka xisbigana golaha dhexe awood u leh wax ka qabashadeeda sidaa daraaddeed waxaan ugu celinayaa mar labaad hawl culus baa taalla xisbigii in la kala diraa la doonaya la burburiyo xilku idinku idi saaran yahay waa inaa maalinta sabtida ah haddii allahu yidhaa ay isugu timaadaan xarunta dhexe ee xisbiga si aad talo uga gaadhaan oo go-aan cad uga qaadataan fawdadan xisbigii iyo dalkaba dhex socotaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ula badoonaya su-aal waxaan jeclaan hal su-aal inaan ku weydiiyo xeerka kursiga ka hor intii aanan ka hadal waxaa jiray waqtiyo ka horreeyey oo aad ka hadlaysay xukuumadda madaxweyne muuse biixi uu soo dhisay iyo hogaamintiisa aad baad u dhaliilaysay marka miyaan la oran karin khilaafkii wuxuu ka horreeyey waqtigii aad ka hadashay xeerka maya kama horreyna waa xeerkan kufsiga weeye halka khilaafka iyagu kala bilaabmay iminkana uu taagay taas waa mawduuc ka baxsan waxa gudoomiye waxaan doonaya inaan ku weydiiyo maalintii labadoodii ka hadlay xeerkan weliba madaxweyne si toos ugala hadlay faahfaahinta ka bixiyey intii aad arrintaa ka hadashay ee bulshadana aad u iftiimisay madaxweynahana aad ka codsatay in xeerkan oo diinta iyo shareecada iyo dhaqanka suubada islaamkaba qadafku ah inuu wax ka qabto adigii madaxweynuhu intii wax xidhiidha ma yeelatano ma ka wada hadasheen intii aydaan arrimaha kale iyo waxyaabaha kale aanay la buunbuunayo miidiyaha iyo dadka ku dhex jira aanay soo bixin madaxweynaha ilaa hadda ma wada hadasheen oo ma kaaga garaabay arrintan aad ka hadlayso madaxweynaha laba mowqif baanu kala taagannahay mowqifkaa ilaa iminka uu ka hadli laayahay ilaa iminka wax tallaabo uu ka qaaday aanay jirin waxay ahayd markii ummadda ay ka hadashay madaxweynuhu inuu qoraal u qoro baarlamaanka oo baarlamaanka dib ugu celiyo si baalkii wax looga qabto may dhicintaasina ogaantay ilaa iminka adigina si toos umaydaan wada maxaa ku haddaanu tallaababa qaadin oo xeerkii baanu ka noqon maxaa tallaabee la qaadaya warqadii la soo saaray waxaa lagu sheegay inaad
amardiida samaysay oo dhowr jeer lagu soo jeediyay inaad afka xisbiga ku hadli karin waa xarunta Aibush oo hal sidoo kale suuqa kicin ka samaysay waxaasoo dhan amardiidada ayaa amray anu gudoomiye golaha dhaxal ahay waa kuba kay amraya ma jira cid amraysa ugumana soo jeedo gudoomiye golaha dhaxal amray cid amarta ma jiro golaha dhaxal baa xukuma يا أمرية هذا كويدية وهي عندك كامر قاضي كامر جديدة يا أمرية وكان كحسبك كم تشرتيت أيام لقود دعوانية هاسانا صار وحاسس وحبك بتشرال حسبك يقوارك كل مية وكان كم تشرتيت يعني وحاس واحد وشك عفوريت وحاسونا بيه إلى أول إلى آخر إنك حسبك وهذا الشرال وجبوها إنك وهذا يا لو أنا إنك وهذا دول أنا وعلي حسبك إنه إحنا نقضوا أو نقبر برا ديالو بيه gudoomiye waxa baa u dirteen mas'uuliyiinta xisbiga kulliyood leedahay waxa uu sheegay in xilkii iyo xubinimadiiba uu ka qaaday marka maxay noqonaysaa baaqan u diraysaa يا ذا الوقت خلطان ديال بادو خلطان تاعي وركنا باهيسين ور خلطان بوها ورتقف كان انتاي تليل بوي هي انه الى حلبان كقال مفوضه عاوسه لكم الشرعيه عاوسه واي سؤالك قولوا لي ورباهين سو شرعي ما حق لو دورتي نك صحيح ورقتن يا دورتي كبح اوت اوف توبك تاسي اوت اوف توبك adigoo xisbiga jooga jaamac Ismaaciil Ciga jaamac Shabeelle isla kana gudoomiyaha golaha dhexe waxa sidoo kale waraaqo gudoomiyaha ama gudoomiye ku-xigeenadu soo saareen xilkoodii lagaga xayuubiyay iyadoo kuwa kalena lagu magacaabayo gudoomiyaha ku-xigeenkii labaad ee xisbiga gudoomiyaha هذا هو خلدنتين ملائم كان دلتين بانو ملينيا شر golo dhaxaaba fadhiyay shir golo dhaxaa ayaa fadhiyay shirka golaha dhaxaa go'aan ka gaaray gacan baa la taagay يا ولدتي ساعده بقى لقى هسيا ninka warqada ku saxan ninka warqada ku waxaad su'aashaadii weydiinayso ka fiirso ninka gudoomiyaha warqada ku saxan hore waad u aqbalsanayd xilkiisa ma aqbalin meel aan ku aqbalayna ma adarag سيروا أقبلوا المشروع ده أقبله. gudoomiye madaxweynaha Soomaaliland adiga ka mid ah dadkii doortay inta badan oo halgamay dhibaatooyinka fara badan soo maray yaa la oran karin marka hore madaxweynaha diinta islaamka ogolayn ba dalka kale waa su'aal wanaagsan waa su'aal arrintan ma kula soo baxay hore ugama muuqan madaxweyne Muusana wax wal oo kalaba waan ku garab taagnaa wax wal oo kalaba ku garab taagnaa ilaa ma qodobka diinta mooyaan wax kasto kale waan ku garab taagnaa ilaa ma qodobka diinta mooyaan